guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay gaari hub u siday degmada Ceelafweyn oo la sheegay in lagu qabtay gobolka Togdheer kaas oo hadalhayntiisu ay maalmihii ugu dambeeyay taagneyd taliyaasha ciidamada booliiska iyo asluubta ee gobolka Togdheer iyo barasaabka gobolka Togdheer oo saxaafadda la hadlay ayaa sidoo kale digniin u diray odayaal ka soo kala jeeda beelaha ku dagaalamay gobolka Sanaag oo hadalla xanaf leh maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta isu marinayay waxaana sidoo kale mas'uuliyiintani ku baaqeen in nabadda iyo xasiloonida laga wada shaqeeyo baabuur baa hadii laga hadlayay oo la lahaa booliiska sii daayay anu baras muxuu ahaa taliya qayb ahaan waxa iga soo horeeyay jaranka ciidamada booliiska ku xigeenka ciidamada booliiska General Fooxle iyo taliyaha qaybta booliiska Yusuf Shire Abdi gaariga waa la soo qabtay waa baabuur nooha ah baadanku inay wax aan jirin sheegaan ma aha baabuurka waxa saar watay qolooyin baa nin baa watay ninkiina qori buu watay markaa qorigii iyo baabuurkiiba way xidhan yihiin sharcigu wuxuu ka qabanay noqon doontaa maxkamadan u gudbinay isagana jeelku ku jira wax kale oo meeshan laga doonayo iyo baabuur la sii daayo booliisku sii daayay iyo waxaan laga hadlayo ma jirto saanaha ogaadaan dadkii hadlayay waxaanu soo jeedinaynaa ama aanu digniin u diraynaa cid kastoo isku dayda inay khalkhal geliso nabadgelyada ama ay dhaawacdo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland booliisku wuxuu ballan qaadayaa inuu tallaabo sharci ah ka qaadi doono nabadgelyadu cid walba danbay u tahay qarankay u tahay gobolkay u tahay cid walba danbay u tahay dadka kacdoonka wada ee wararka isu dhaxmarinaya waxaan jirin ama media waxaan jirin isu dhaxmarinaya waxaanu u dareemaynaa ama aanu u aragnaa ama ay yihiin inay yihiin dad khalkhal gelinaya nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolkaba cid kasta oo ka yooyootanta muxuu ahaa meediyaha ama hadal xun ka sheegta ama hadal nabadgelyada kicin ku ah isu maraysa waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah ninna uma suura galayso intuu iska hadlo oo wuxuu doono ku hadlo inuu haddana hadhowto iska joogo wadanka suura gali mayso waayo balaayo daba la qabto ma laha daaman la qabtaa bay leedahay baa la yidhi inta aanay tallaabada ay doonayaan aanay fulin ayaanu daamanka qaban doonaa insha Allah halkan waxaan ka sheegaynaa cid kasta oo media la soo fadhiisata arrin shaqaaqada Ceelafweyn u muuqan karta inay tahay kicin ama maaragtay u muuqan karta inay kabriidka ku sii qabanayso guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer waxay ogeysiinaysaa dadka reer Togdheer ciddii arrinta ku kacda ee media la soo fadhiisata in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan waa digniin weeyaan nabadgelyada xukuumadda ka mas'uula cidna loo daba fadhiisan maayo wadana cid ma xiri karayso mid baan wadada u dhaxaysa Burco iyo muxuu ahaa Ceergaawo xiri karin mid baan wadada Burco iyo Hargeysa joogta xiri karin kii waxayna uu iska hadlay cidii dambe ee la soo fadhiistay miiliya hadallo noocaasa oo waxa weeyaan xaaladda sii murginaya waxaan ballan Ilaahay ku qaadan inaanu ka qaadno tallaabo sharciga waafaqsan Ahmed Saleebaan Carab Ahmed Kaafi Bulsha TV Bro